faa'iido u leedahay. waxaan islaa marka maadaama qur'aanku uu ahamiyadaas weyn mawduucan siiyey idinkan waxaa muhiim ah in ahamiyadaas weyn siisiin oo bal aan u fiirsano mawduucaas. waxaa la yiraahdaa al-usratu wal-qur'aan. maxaa la dhahaa al-usratu wal-qur'aan, qoyska iyo qur'aanka aa la dhahaa. maxaa qoyska uga hadlaynaa? mawaadiicda laga muxaadareeyo waa badan yihiin. maxaan qoys uga hadlaynaa? qoyska waxaa weeyaan mujtamaca iyo bulshada muslimka ah bulkeetigii uu ka samaysmaayo waay. bulkeetigi intaan guriga laga dhisin intuu yaalaa midba meeluu yaalaa soo maaha. markii guriga laga dhisana maxay samaynaysaa? hal derbiyay samaynaysaa. halkaa derbi ma derbi meel yaalo suuqa laga soo gatoo la dhejiyaya? maya. laakiin waxaa bulkeetiye inta lasoo qaatay la isi saarsaaray oo la isku dhedhejiyey maxay sameeyeen? derbi ayay sameeyeen. taa micnaheeda waxaa la mida mujtamaca muslimka ah iyo bulshada muslimka ah waxay ka samaysan tahay qoysas isku tagtagay. haddii qoyskaasi uu yahay qoys hash ah oo burbursan oo ilmaha ka soo baxaya ciyaal weero ay noqonayaan oo ismidiyeynayaan oo isdilayaan oo mooryaan ay noqonayaan oo quraan aysan waxba ku haynin oo hooyadii aabbihii cadowna maaha heshiisna maaha la leeyahay oo meesha la isku taagan yahay, macnaheeda derbi toosan maa noo dhismay? maya. derbigeenuu burburi doonaa, horuu ka burburi doonaa. hadduu derbiga burburana cadowaa kaa soo galaayo, dhaxanaa kaa soo galayso, bahalaa kaa soo galaya, yaa ku difaacaya. laakiin ilaahay qoyska markuu ka hadlayay wuxuu ka soo bilaabay markuu qofku ku fikiri rabo inuu qoys sameeyo iyo markuu qoys samaynayo iyo maalinta la meherinayo iyo markii guriga la tago sida loo dhaqmayo cidda mas-uulka noqonaysa iyo haddii khilaaf yimaado see loo xalinayaa. hadduu khilaafka gabadha ka imaado ilaahay suu kala qaada fiiri. hadduu khilaafka gabadha ka imaado see loo xalinayaa, hadduu wiilka ka imaado see loo xalinayaa. haddii qoyskaasi uu kala tegayo laba miduu ku kala tegaya inuu furitaan yimaado ama inay dhimasho timaado see haddii isfurayaan isku furayaan, haddii ay dhintaan maxaa ka dhalanaya. qoyskaa wixii ka dhashayoo ilmo ah hadhow maxay dhaxaloo yeelanayaan ilaa ilmahaas ay ka qaangaarayaan uu qur-aanka ka hadla. ayib intaana isweydiinin ka hor waxaa isweydiin mudan maa hiya alusra? qoys maxaa la dhahaa? maa huwa mafhuumu lusra? qoys maxaa waaye? ayaga dhibka haysta maxaa waaye mataqaan? marka waxaan mar kasta ilaahay bani aadamku ku abuuray laakiin ilaahay muxuu ugu talagalay mataqaan? jid toosan in loo qaado. jidkii loo qaadi lahaana fil qur'aani bay ku taala min bidaayatihi ilaa nihaayatihi. markaa jidkaa toosan u qaado noocii bani aadamkana waa sii jirayaa, qoyskii muslimkana waa dhismayaa, mujtamaciina waa toosaya oo bulshadaana aragta inay kala furfuran tahay oo isdilaysa. dhibka laga haysta waa qoys. laba jid maray qaadeen, marna way iska xireen oo waxay dhaheen waxaas dhan ma jiraan. markaasay ku keentay inay ilmo yaryaraayo 50,000 ka badan ah inay kufsadaan. marna waa sii daayeenoo habeen kasta hadday safarto midkay sii salaamtaba uuray usii qaadaysa ama waa iskala hoyanaysaa. anaga laakiin islaamkeenu waxaa maaha. ilaahay wuxuu ka dhigay xaajada ama yani bani aadamka ku jirta sidii bensiinka oo kale. bensiinka adiga gabar maaragtay haddaa gabar dhalinyaraa tahay iyo haddaa hooyo tahay shaqada ugu weyn ee gabar qaban karta maxaa waaye? shaqada ugu weyn ee ugu sharfan ee gabar qaban karta waxaa waaye mid ilaahay ayada uu abuuray waaye ee jirkaada loo toosiyey ee loo diyaariyey ee markaa qaangaartaba jirkaada uu isku diyaarinayo weeyaan. waa inaad noqotid rabbatu manzil. waxaan hadda bilaabaynaa marka istaabiskii la qaadi lahaa qoyskan muslimka ah sida qur'aanku intaan dhanna maxaan daba soconnaa? qur'aankii la daba raacaynaa. ilaahay suurado tiro badan uga hadlay qoyska. suuratu nisaa ilaahay inta ugu badan kaga hadlayba. suuratu lbaqara aksar min 10 suwar. suuratu nuur, suuratu talaaq, suuratu taxriim, kulli ilaahay muxuu uga hadlay? wuxuu uga hadlay qoyska islaamka ilaahay uga hadlay iyo axkaamtii ka dhalanaysay qoyska ilaahay uga hadlay. kow markaa qoys la dhisay labada qofood ee dhisaysee rag iyo dumar ah waxaa raba idan dadka way isla wada noolaan rabaan hadhow moogta mid walba midka kale siduu u arko inuu saxaa la rabaa. ilaahay muxuu saxoyaa marka gabadhu siday rajul nin u aragtaa ninkuse sideebuu gabar u arkaa. ilaahay subxaana watacaala uu na barayaa kooda horaba. sababta maxaa waaye mataqaan? haddii ninkan uu aaminsan yahay haweenku inay yihiin xabaa'ilu shaytaan
حركة شيطان ويه عقل ملها إن النساء شياطين خلقنا لنا هواك محاوي شياطين أنا نلا أبوري واي هدي آمسيهين ما ركتي هدو نينكو هواكي قبل وساء أركو هدي رير لنا قطن أهمية مسيناي قيمة مسيناي لأنه كل هرم هو يقانه ده wax liito oo aqligoodu dhiman yahay oo meel oo ma aragtay aanan waxba samaysan karin oo xirka shaydaan ahoo daciif ahoo wax isku tari karin oo u arka nadaradaasi in la saxay u baahanta haddii kale hadda waxaa ka dhalan doonta ninka siduu gabadha ula dhaqmi doono waxay ka dhalanaysaa siduu u arko gabadhaana hadday ninkan u aragto ma aragtay cadow waayuusa wax kugu yeelanin yuusa hanti kugu yeelanin naa kalu guursanaya nin islaameed waa waxaan berri waa isku imaan kartaa waa kala tegi kartaan ma aragtay silac intaa ku noolaan lahaa 30 inaa guursadaa ii dhaanta gabadhun ay sidaa u aragto aragtidaa maxay ka dhalanaysaa gabadhaa sida ninka ula dhaqmayso waa jalaafeyne laanna waxay ku leedahay hadduu heer kugu gaaro adigu kugu soo jeesanaya aragtidaasaa marka waxaa rabaa in la baabi'iyo ilaahay marka ugu horreysa marka muxuu rabaa inuu noo sheego insaanka rajul يعني أركتها محا كدلتي متقان وحا كدلتي سومالي إني دهان عولنا ماهن هشيسنا ماهن إني دهانا كدلتي إلهي مركب محورة إنو نوشيغ وحورة إنو نوشيغ رق إيا دمر أصل كانوا إنا هرطة من نفسي واحدة كنمت كو إلهي أكتي سنة عنوسي منا هاي وأعماش إي عبادات كنا إلهي أكتي سأوسي منا هاي قف والبنا إلهي وو أبوري إلهي مركو أبوريان وما أبورين كان مت كان ككوريسي أما كم مت كان كفيعنيسي وما أبورينه مت كستهاش وقوانا يدرادد أيو إلهي أو أبوري gabadhaani hool baa loogu talagalay ninkana hoolaa loogu talagalay kala duwanaanshaha ay kala duwan yihiin macnaheedu maaha way kala qiimo badan yihiin laakiin macnaheedu maxaa waaye way kala howl duwan yihiin haddii maanta moobeelkaa iga halaabo oo ninka kawaalaha awgey ka war oon raba moobeelkaa ii samey qalad wey shaqadiisa maaha soo maaha ilaahay markuu bani aadamka abuurayna muxuu yidhi wajacala baynakum mawaddatan waraxma weliba aayadda ilaahay halkaa kuma soo gabagabayna muxuu yidhi inna fii daalika haddana la aayaad aayadda maxaa lagugu bilaabay wamin aayaatihi wamin aayaatihidaas keliya ma ku filantay maya haddana maxaa lagu yidhi inna fii daalika la aayaatin liqowmin maxay yatafakkaruun oo ah horta labada qof say isku arkaan inay noqoto cilaaqada rag iyo dumar ka dhexaysa waa cilaaqatun tanawuciyatun takaamuliya waa kala duwannahay abuurkeennaa kala duwan waa ina isdhammaystirayaan وراء كل رجل عظيم محالة ده امرأة عظيمة ننكستو ميل قاري محا كدن بيسة قبر وين با كدن بيس وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم نواجرتها قبر كستو عرقتين عظيم تهي او ايضا نواركت التربية ده ايا قويس كده ايا النولش ادوني اقرب كل يبانتها دا عرقتد وراءها رجل عظيم مركا لبدا عرفها انت محا كدلنيا ورنولش ان نولل اسلامي استيرايو واي nolol iskaalmeenaayo waay nolol shirka la yahay waay wax yar la noolaani ma ina cadaawo ku noolaata iyo maarata wax kala qarsi iyo wax la isku sheeganin ma aha ilaahay wuxuu yiri aayadda hore muxuu yiri ha ka qaadanina la taakhuduu minhu shay'a meesha uga tagin canaana la raaciyaba wa kayfa taakhuduna baalir saa uga qaadanaysa bacdum hadda marka way ku dhibayaan aan soo qaadana marka waxaan dhahnay qoyskii markii la dhisay man il mas'uul يا مسؤولية قاضي يا قوامة يا قاضي إلهي ونوشة يا هدنا إلهي سيدو استاب نوها يا فيري إلهي وعير الرجال قوامون على النساء رقوا أيجا أتاج نبضا أو معمولة على النساء دمركي سببت محاول الله بس أبوه إلهي شيء سبب أبو رزقه وإلهي قفك نكو أبو ري يا سبب كسبي أو قفك إنه كسب ضل جرب قضبك كلا كهلين اللي حاد وحويه qoyskii la soo dhisay ee mas'uuliyadda cid leh loo ogaaday ilaahay meesha uga maharin ilaahay wuxuu sheegay seel lagu wada joogaya ilaahay wuxuu yiri qaacido guud oo bixiyo waxa la yiri haweenkana si waa loola hadlay raggeena waa lala hadlay Umar bin Khattab baa nin u yimid markaasuu yiri aniga xaaskayga waa nacay waa iska furaya macnaha inaa iska furaara sababtoo ah ma jeceli uu yiri Umar bin Khattab wuxuu yiri wayxak alam tubna al-buyut illa ala al-hub ورهوغي قريها جعيل كلية مع الغود سابويري أين الرعاية وأين التذمم وحا إلهي ساق وذا وقال الله وحاوية قويس كان إنو تاقنادير لسمي سيجيرو أيها هدفك أغوين طيب إلهي سبحانه وتعالى مركو كهل العلاقة بين الرجل والمرأة
tilmaanta uu siiyey aad iyo aad la yaab u lehed ilaahay muxuu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun aad iyo aadan dhowr jeer u sharaxa arrinkaasoo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi dhar baad isku tihiin macnaheedu maxaa waay dhowr 10 waxyaaboodaa laga qaataa bay ku leeyihiinu dharaa isku tihiin macnaheedu waxaa weeyaan masalan dharkaani jirkaada yaa u dhow jirkaada iyo dharkaada yaa u dhexeeya hadda wax u dhexeeya ma leh sida iskugu dhow yihiin baa labada qofood iskugu dhow yihiin ilmo markay imaadaan dhibka soomaalida neesta maxaa ilmihii waa la isku dhibaa hooyada ilmaheedii waa lagu dhibayaa subxaanallah oo asxaabta qaar iyo gabdhaha qaar markaan dhegaysto caloosha ku xanuunays ilmahaadi wax lagugu siin maayo haddii kale isoo sii maaragtay ilmahaada in lagu dhibo la arki maysid la dhaho in laga qaato lagala dhuunto in markii ay furiin ama wax dalbato ama ay xooga xanaaqdaba ilmahan arki maysid haddii kale dhibkaan u adkaysa la yidhaahdo ilaahay taabuu diidaya muxuu yidhi marka laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladih wacala alwaarisi midlu dalik waa amar war hooyo ilmo dhashayna ilmaheeda yaa lagu dhibin aabbe ilmo dhalayna ilmihiisa yaa lagu dhibin calaykum qoyska intaasoo dhan soo maray hadday wada joogi waayaan ilaahay iskuma dhajinin moogta ilahay wuxuu yidhi wain yatafaraqaa yugni illaahu kullan min sacatih hadday kala tagaan ilaahay mid kasta muxuu ka deeqayaa goonidiisa ilaahay u deeqayaa oo goormee tafaruqaas imaanaya markii tallaabooyinkan dhan la soo qaaday oo waxaa dhan la soo sameeyey oo lagu soo guul daraystay ayaa yatafaraqa imaanaysaa wain yatafaraqa hadday kala tegayaan yugni illaahu kullan min sacatih mid kasta ilaahay muxuu ka deeqayaa geeskiisu ilaahay ka deeqayaa kala tagkii baa yimid hadduu kala tagi yimid maxaa imaanaya talaaq baa imaanaya furiin baa imaanaya qoys dhan oo ilaahay magaciisii lagu dhisay ayaa maanta kala furmaya ilmo hooyo iyo aabbo wada fiirsanayay ayaa hadda kadib arki doonin qoys biil iyo lacag i bixinayay waa wax ka qaldami doonaan gabadhan mas'uuliyadda awal aan saarnayn ayaa hadda soo kori doonta caqabadooyin badan ee la kulmi doonaan xaq bani aadama meeshaas ka dhalanayo hadduu dalaaq yimaado waxaasna ka dhalanayo xaq bani aadam ah ayaa ka dhalanayo de qofkii dumarka ahaan inaan lagu xadgudbin baa la rabaa oo ninkii dalaaqa gacanta ku hayay ilaahay asagoo gacanta u geliyay inuusan ku xadgudbin ilaahay siduu u adkeeyay aayaadka dalaaqa markii la marayo marka yacni aada ula yaabaysaa hadda ma ka hadlayo axkaamu dalaaqi kama hadlooyo laakiin waxaan rabnaa ilaahay luqaddu isticmaalay markuu aayaadka dalaaqa ka hadlayey luqaddu isticmaalay aayadaha furiinka markuu ilaahay ka hadlayey aayadda qaar muxuu ku soo gabagabeeyey walaa tansaw lfadla baynakum meherka ayuu ilaahay ka hadlayey gabadhii meher loo magacaabay maxay leedahay midaan loo magacaabin maxay leedahay kadibna ilaahay muxuu yidhi walaa tansaw lfadla baynakum war fadligii iyo wanaaggii dhexdiinna aha ha iloobina oo inaad hadda ka hor soo wada joogteen oo reer soo wada lahaydeen oo haddii ilaahay idin siiyana aysan ku jirin ha iloobina walaa tansaw lfadla baynakum ilaahay siduu u qeybiya u siiya ilaahay baa idinkaga jawaab aayadda weliba ugu dambaysa suuratu nisaa ilaahay markuu dhaxalka ka soo hadla muxuu yidhi yubayinu allaahu lakum an tadiluu ilaahay axkaamtii dhaxalku idiin caddeeyey karaahata an tadiluu inaad luntaan oo xaqiina aad ku xadgudubtaan oo xoolo agoon la qaato ood maaragtay habowdaana ilaahay idiin diidaya saa darteed ilahay waaba idiin caddeeyaba axkaamta wallahu bikulli shayin caliim ilahay wax kastana saa ku cilmi leh ilmaha iyo hooyadu indibaaca iyo tarbiyadu ilmuhu ka qaataan hadhow mustaqbalkooda dambe xataa waa saameynaya gabadha yaraada idiin sheegayay ee ilmaha markay yaryari maxay dheelaa ilmooy iyo hooyo iska dhigay safiir ilaahi subxana wataala wuxuu u diyaarinayo guri bay dhidhisaysaa sariir bay samaynaysaa ilmihii bay u shaleynaysaa maxaa ilaahay uu ku abuuray min fitratihaa waaye gabadhan shaqadeedu inay tahay hooyanimo gabadhii yarta ahayd laakiin waxay arkay hooyadeeda islaamo kale u sheekaynayaan oo ka sheekaynayaan ilmihii maaragta ninka uu qaadanayo 3 cunugoo kale aabbaa baa la dhalatay marka ilmihii baa odaygii baa ka qaadanaya habartiioo naago kale ku cabaadaysa hooyadiioo islaamo kale ku cabaadaysa aragta ayadina gabdhihii yaryaraha u sheekaysanaysaa guriguri baa la samaynaya maxay leedahay marka anida nintee ilmahan aabbahood inuu idin qaatuudo uu rabaa wallahi ma teelahay ku leedahay marka 8 sano waay macnaha mentaalitigeeda maxay ku fikiraya maxay aragtay ilmo la kala dafayo ilmo la kala qaadanayo aabbe hooyo liidaya hooyo aabbe wax ka sheegaysa dad cuqdad isku qaba waqtigan aad u soo dhow yahay subxaan allah jazaakum allah khayr salaamu calaykum